dhawaan waxa soo gabagaboomi doona horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub laakiin waxa jira 10 xidig oo loo arko ciyaartooyga u fiicnaa kuwaas oo sameeyay caawin iyo sidoo kale goolin intaba 2022-2023 waxa uu ahaa xilliyeed qurux badan oo ciyaartooyda qaar ay qaateen waqti marka la fiiriyo aan caadi ahayn haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa 10 ciyaartooy oo sameeyay goolashii ugu badnaa inay sabab marka la fiiriyo oo noqdaan ha dhaliyaan ama ha habiyaan ninka tobanaad ee sheekadan waa ninka lagu magacaabo Northern Colo Molo waa ciyaartooygan 29 jir waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Inter Frankfurt ee wadanka Jarmalka aflaata jirkan ayaa soo bandhigay bandhig aan caadi ahayn xilli ciyaartooygan uu dhaliyay 15 gool 14 jeer oo assist uu sameeyay kadib 32 kulan oo ciyaaray horyaalka Bundesliga ee wadanka Jarmalka hadda waxaa loo arkaa mid kamid ah kuwa ugu badan ee ugu wanaagsan ee ka ciyaaray horyaalka wadanka Jarmalka Anthony Griezmann waxa uu dhaliyay 30 gool xilli ciyaartooygan loo arko mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan ee kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid kuguuleystaha koobka adduunka sanadii 2018 ayaa bandhig wanaagsan ku soo bandhigay xilliyeedka hadda soconaya waa xilliyeedka hadda gabagabada ku dhow ee qaaradda Yurub dhanka league xilli xidigan uu dhaliyay 15 gool 15 jeer oo assist uu sameeyay kooxda hogaamiye Diego Pablo Simeone waxa uu ciyaartooygan marka la fiiriyay ka dhigay koox kamid ah kuwa xoogan kadib lugtiisa bidix uu ku dhaliyay 15 iyo sidoo kale 15 uu ku caabiyay weeraryahanka qaranka wadanka Poland ninka lagu magacaabo Roberto Lewandowski ayaa sabab u noqday inuu 30 gool dhaliyay xilliyeedkan gabagabada ah kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ciyaartooygooda hore ayaa bandhig aan caadi ahayn ka sameeyay horyaalka wadanka Spain ee Ligue 23 gool oo shabaqa ku riday xilli 7 jeer oo City ugu sameeyay kooxda kubadda cagta ee Blaugrana weeraryahanka qaranka wadanka Nigeria ninka lagu magacaabo Victor Osimhen ayaa loo arkaa mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan ee suuqa khaliibsiga hadda laga baadigoobayo kan waxa uu soo jiitay indhaha kooxaha weyn ee qaaradda ka dhisan waxaana qayb ka ah Manchester United Chelsea iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale waariyada kooxaha weyn oo Yurub ka dhisan oo hadda magacooda ku sheegan waxa uu dhaliyay 25 gool aflaatan jirkan waxaana kooxda kubadda cagta ee Napoli uu ka cabiyay oo waraan wax ka badan 30 sano in ay isku daata marka la fiiriyo ay moogadaan oo asaga gacantiisa marka la fiiriyo ama lugtiisa uu guuleeyay ninka aan sidoo kale waxa lagu xasuustaa inuu kooxaha weyn marka la fiiriyo gool badan ka dhaliyay waxa uu asaga sameeynaya waqtigan bandhig aan caadi ahayn 25 gool uu dhaliyay sidoo kale 5 jeerna waxa uu sameeyay assist xilli ciyaartooygan loo arko kan ugu wanaagsan ee hadda ee gudaha wadanka Talyaaniga weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mohamed Salah waxa uu ku lugay 31 gool kooxaha weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool dabcan Mohamed Salah ayaa 31 gool ku lug yeeshay waqti aan kulamada Liverpool u ciyaaray xilliyeedka gabagabada ah ama xilliyeedka dabcan Ingiriiska dhankeeda laga soo gabagabiyay inkastoo horyaalka marka la fiiriyo marka laga soo tago tartanada kale ay socdaan siyaadarteedna aan la dhigi karin xilliyeedka ay soo gabagaboobay waxa uu ciyaartooyga ku lugay 31 gool Mohamed Salah ayaa dhaliyay 19 gool iyo sidoo kale 12 jeer oo assist ah weeraryahanka qaranka wadanka Egypt waxa loo arkaa inuu ku jiray mid kamid ah banagdiisa oo wanaagsanaa tan iyo markuu Anfield tagay Lionel Messi ayaa 32 gool dhaliyay ama Lionel Messi ayaa 32 gool waqtiga marka la fiiriyo sabab u noqday in la dhaliyo xilli ciyaartooygan uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ee wadanka Faransiiska waxa uu sameeyay ciyaartooygan inuu dhaliyo gool marka la fiiriyo 16 gool ah iyo sidoo kale 16 jeer oo assist uu ka sameeyay waxa jira kulamo kale oo gool u dhaliyay sida in uu 6 jeer dabcan gool dhaliyay tartanka UEFA Champions League laakiin ma la joogo tartanka oo dabcan kulamada horyaalka oo kaliya waxa uu sameeyay Lionel Messi oo 32 inuu ku lug yeeshay 16 gool oo caabiyay 16 gool oo dhaliyay Alexander Lacazette 32 gool ayuu ku lug yeeshay ciyaartooyga hore ee kooxda kubadda cagta ee Gunners hadda waxa uu istaa bandhig fiican markii uu ku soo yahay kooxda Lyon waxa uu joogaa sanadkii ugu dambeeyay ee final yarka laakiin waxay u baahan tahay Lacazette in gudaha Ingiriiska waqtigan kooxo kala duwan ay ka danaanayaan Harry Kane kabtanka wadanka Ingiriiska ayaa 33 gool ku lug yeeshay xilliyeedka soconayo ee 2022-2023 ciyaartooygan ayaa waxa uu marka la fiiriyay dhaliyay gool badan kulamada horyaalka wadanka Ingiriiska waana kan labaad ee ugu badan ee gool ka dhaliyay horyaalka marka laga soo tago Eric Lan oo 36 gool ka dhaliyay horyaalka wadanka England si kastaba ahaatee kabtanka England waxa uu soo jiitay indhaha kooxaha weyn oo qaaradda Yurub ka dhisan waxaana qayb ka ah Manchester United sidoo kale Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Manchester United way qayb ka tahay kuwa doonaya ninka la yiraahdo Harry Kane Kylian Mbappe ayaa sidoo kale ku jira warbixintan kaasi oo ku lug yeeshay 4 gool kulamada horyaalka uu ciyaaray ciyaartooyga qaranka wadanka Faransiiska superstarka Paris Saint-Germain ayaa 28 gool ka dhaliyay Ligue 1 horyaalka wadanka France halka tirada kale ee soo hartay uu caawin marka la fiiriyo uu ahaan uu sameeyay
si kastaba ha ahaatee 6 jeer uu caawin kulamadan u sameeyey waxa uu ahaa sidoo kale mid xitaa kulamada qaar caawin iyo gool marka la firiyo isku qadanayay Kylian Mbappe laacibkan hadda waxaa daneynaysa kooxda ugu taariikhda fiican dunida ee Real Madrid kuwaas oo doonaya in 24 jirkan ay geeyaan garoonka weyn ee Santiago Bernabeu. Erling Haaland ayaa 44 gool marka la firiyo ku lug yeeshay waana ninka koowaad ee 10 ciyaartooy aan ku sheegay. Erling Haaland ayaa 36 gool ka dhaliyay horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League waa dhaliyaha ugu sareeya horyaalkan wuuna ku guuleystay bilada dabcan goolinta horyaalka waddanka Faransa waxa uu ka caawiyay kooxda tababare Pep Guardiola ku guuleysiga horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League markii saddexaad u xiriir ah xilli tartanka UEFA Champions League iyo FA Cup-kana ay waqtiga ay final joogaan 44 gool ayuu ninkan ku lug yeeshay 36 ka midna asaga ayaa markale fiiriyay sameeyay lugtiisa inuu ku dhaliyo xilli 8 jeerna uu caawin u sameeyay kooxda kubadda cagta ee City. haddaba 10kan ciyaartooy waxaa loo arkaa 10ka ciyaartooy ee goolashii ugu badnaa ku lug yeeshay xilliyaareedka hadda soconaya ee gabagabada ee 2022-2023.